السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك. soo dhawaada daawadayaal. Maanta waxaan inoo wadaa qisadana waxay ka dhacday wadanka Turkiga, waxayna ku dhacday gabadh la yiraahdo Oscar Janesland. Gabadhani waxay dhalatay 22 Oktoobar 1995. Gabadhani ilaa yaraanteedii waxay ahayd gabadh jecel inay barato cilmi nafsiga. Hooyadeed iyo aabaheedna waa ay ku dhiirigelinayeen. Markii weynaatay oo iskuulkii dhammaysay, waxay go'aan ku gaadhay inay raacdo riyadeedii oo ahayd barashada cilmi nafsiga. Hooyadeed waxay bilowday in ay habeen iyo maalin shaqayso. Oscarna waxa ay heshay half scholarship, yacni lacagta badhna laga bixinayo, badhna reerkooda ka bixinayaan. Sida ay tahay hooyadeed habeen iyo maalinba waa shaqayn jirtay. Oscarna maalimaha fasaxa ama bilaha fasaxa ay leedahay waxay aadi jirtay Qubruska Waqooyi, halkaas oo ay ka shaqayn jirtay, kuma sii dayn jirin hooyadeed shaqada. Waxa dhacday haddaba in 11 February 2015 Oscar markii ay dhammaysay casharadii jaamacadda ay ka soo baxday, waxa ay go'aan ku gaadhay inay ku noqoto reerkooda. Reerkoodu waxay deganaayeen magaalo la yiraahdo Mersin, halka jaamacadeeduna ay ku taalay Darsus. Iyada iyo saaxiibadeed waxay aadeen moolka, waa soo shopping garaysteen, hodheel bay iska galeen, waxba iska soo cuneen. Saaxiibadeed waxay degan tahay Mersin iyo Darsus dhexdooda tuulo yar oo ku taala. Waxa dhacday in markii ay basasku u yimaadeen oo basaskii u kaxaynayay Mersin, gabadhana wadada kusii dhigayay, ay raaceen in ay gaadhay, yacni galabtii bay gabdhahani soo baxeen. Waxay gaadhay saacadu maqribnimadii. Oscarna meel ay jaan iyo cirib dhigtay waa la waayay. Reerkoodiina waxa ay bilaabeen inay wacaan boolis. Haddaba intii ka horreysay intii aanay booliska wacin, waxaa jirtay askarta wadooyinka ayaa waxay aragtay bas ka soo baxay meel kayn ah. Dabadeed waa qabteen, waxay yidhaahdeen halkan maxaa ku soo mariyay, meeshani ma aha wado, teeda kale basasku ma maraan. Ninkii basaska waday waxa uu yidhi waan khaldamay, wadada ayga khaldantay. Waxaana laga soo dejiyay gaarigii baa la baadhay. Gaarigii markii la baadhay, gaarigii waxa lagu arkay dhiig. Waxa la yidhi dhiiggan waa maxay? Wuxuu yidhi dhiiggan 2 ka mid ah dadkii rakaabka ahaa ee gaariga saarnaa ayaa islaayay. Waanuna kala celinoo de waan xallinay arrinkii. Sidaa ayayna ku dhammaadeen. De maxaad isku disheen aniga lama weydiin karo. Ninkiina waa la iska sii daayay. Boolisku waxay bilaabeen in ay kaamiradihii wadooyinka eegaan, bal hadda gabadhani ciddii ugu dambeysay la socotay, saaxiibadeeda la ogaaday inay la socotay, saaxiibadeeda la wacay. Waxay sheegtay saaxiibadeed in ay gaariga kaga degtay bartamaha. Markii kaamiradihii la baadhayna waxa la ogaaday in isla gaarigii boolisku qabanayay dhiigga lagu arkayay. Gabadhani raacday. Ninkii baa la soo qabtay. Haddaba waaye ninkani. Ninkan ma aha keligii, waa isaga, aabihii iyo saaxiibkii. Aabihii waxaa la dhahaa Jamaaludiin. Waxa uu ka soo jeedaa reer tijaar ahaa oo ka ganacsan jiray dahabka, laakiin markii dambe faqiiray. Inankiisa gaariga wadayna waxa la odhan jiray Subxi. Subxi wuxuu jiraa 26 sano. Subxi booliska waxa u yaala dhowr dambi, tahriibin ay ka mid tahay. Waxa dhacday in odaygani markii uu lacag waayay, xoogaa lacag oo yar oo uu dadka soo qaatay gaarigan ugu iibshay, doonayana wiilkiisa inuu ugu shaqeeyo. Cabbaar ka bacdi baadhitaan, Subxi waa qirtay. Wuxuu yidhi gabadhani gaariga markay iga soo raacday Darsus, dadkii oo dhan basaskii wadaday kaga degeen, waxaana isku soo hadhay aniga iyo iyada. Markii aan bartamaha marayay, waxa aan u leexiyay gaarigii kaynta la dhaho Jandaraasi oo ku taala tuulada la dhaho Jamaransi oo Darsus ka tirsan. Wuxuu yidhi waxaan isku dayay inaan kufsado, laakiin way iska celisay.
waxayna wadatay basbaaskan gabdhuhu badanaa isku difaacaan indhaha tuugta iyo qofka damca inuu kufsado iyo yacni taa ay ku shubaan. Wuxuu yidhi markii igu shubtay basbaaskii waxaan la soo booday mindi waanan geliyey. Kabacdina waxaan soo qaatay bir ka mida birihii gaariga madaxaana kala dhacay ilaa ay dhimanaysay. Sidaa kuma joogin aabbahay baan u wacay waxaan ku dhahay aabe gabadh baan dilay. Odaygii halkii wiilkiisii yacni canaanan lahaa oo dembigiisii sheegi lahaa waaba asturay. Wuxuu yeedhay nin la yidhaahdo Fadxi waxa ayna ka caawiyeen siday meydkan yacni uga takhalusi lahaayeen. Gabadha markii ugu horreysay gacmahay ka gooyeen si aan yacni fingerprint iyo caddaymo iyo waxa looga helin. Intay googooyeen bay gubeen halkii bayna dhigeen. Maxay tahay meydkeedina waxay ku aaseen kaynta Chandrasi la yidhaahdo. Waa la soo qabtay waa la xukumay. Haddaba arrinka la yaab kale waxa weeye gabadhan waxa u kacay dadkii Turkiga oo dhan. Hadday fanaaniin tahay, hadday jilaayo tahay, hadday shicib tahay waa la wada kacay. Dadkii xuquuqda maxay tahay haweenka u doodi jiray, xuquuqda bini'aadanka yacni dadkaas oo dhan baana kacay. Fanaaniintii kacay ama aktaradii kacay waxaa ka mid ahayd gabadha la dhaho Brensat Hulya iyadana. Waxa dhacday in banaanbaxyo laga dhigo waddanka Turkiga sida Istanbul, Ankara, Asmir, Mersin iyo Bursa. 500,000 oo qof in ka badan inay shaariciyada iskugu soo baxeen. 500,000 oo qof in ka badanna ka qayb galeen maalinkii aaskeeda. Arrinka la yaab kale ayaa iyaduna waxay tahay in Turkiga dilkii yacni xukunkii dilka ahaa dadku waxay dhaheen dil mooye wax kale ayaa nimankan lagu xukumin. Laakiin 2004 ayaa laga joojiyey dilka waddanka Turkiga. Waxaa lagu xukumay 3doodii in ay inta noloshooda ka dhiman ku jiraan jeelka. Laakiin isla yacni sanadkii la xukumay wuxuu ahaa 2016. Laakiin isla sanadkii 2016 waxaa laga war helay in jeelka dhexdiisa lagu soo weeraray Subxi iyo aabihii. Subxi waaba dhintay isaga. Jeelka dhexdiisa ayaa baaskoolad madaxa looga dhuftay. Aabihiina waxaa la sheegayay isaga oo ku jira xaalad khatar ah. Halkaa ayayna ku dhammaatay qisadeenii. Waan rajeynaya inaad ka heshay. Channelka subscribe saar, gambaleelka furo, bal share gareeya channelka xoog buu fadhiistay. Awalba horta alxamdulillah yacni dad badan ma haysan laakiin dad yar oo isjecel baynu ahayn. Waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad channelka share gareysaan, ku share gareysaan Facebookyada, WhatsApp-ada, meel allaale meelshaa doontaan ku share gareeya. Waad mahadsantahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.